بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال عشرين برنامج بيكسسكا عشرين marka aynu kusoo diyaarsanay invoice keeni waxaan maanta u baahanahay invoice markii aad dabcan dhamaystirto qofka agaabka iibso agaabtii ka wada iibso waxaad u baahan tahay inaad print garayso invoice kaas oo soo saarato kadib waxaan maanta sameyn doonaa haddii la yiraahdo sida aynu printiga ugu sameyn lahayn invoice keena marka invoice kaas ka xidheynaa kadibna waxaan tegaynaa reports baan tegaynaa dabcan casharaantii hore meena reports ku soo baraneen reports waa formkii iyo wax dhib kala mala waxay ku kala duwan yihiin formkii waa bas wax loo kala adeegsan ku kala duwan yihiin laakiin xagga design karaynta iyo xagga sameynta inta waa iskaga mid markaan invoice keena sameynayno reports ka si aan u soo print garayno waxaan tegaynaa report wizard baan tegaynaa kadib sida formskaaga caadiga ah inta uu soo dooran jirtay inta aad u baahan tahay inuu printiga kuugu soo baxo ama reportiga markaad eegaysid inta aad doonaysid inaad aragto soo dooranaysaa marka inagu imika ahaan table customerska waxaan ka soo dooranaa qofka customerka magaciisa waxaan tegaynaa haddana sales invoice subtable baan tegaynaa invoice ID gaan u baahannahay reference number ka u baahannahay meeyisaga iska deynaynaa kadib markaan inta joogno xubada ka soo qaadano kuwan saddexdan soo raaci quantity sol iyo date notice kadib maxaan ku laabanaynaa haddana items keena tegaynaa itemkan iibinay wuxuu yahay magaciisa iyo price inta naga siiyay inagu inta waxaan u baahnaa qofka magaciisa iyo invoice ID-giisa iyo quantity-ga inta aan qofka ka iibinay iyo qiimaha ka siinay iyo magaciisa iyo taariikhda markay ahayd wax notice hadaa ku qoran okay marka naga stide marka halkan joogto dad ila sameynayso pay invoice baad ka dhigaysaa pay sales invoice subtable kamaad ka dhigaysaa pay customer kama dhigaysid pay items na ka dhig labada midna ka dhig pay sales invoice subtable ka dhig okay marka naga stide kuwana naga stide kadibna naga stide maxaan ku qoranaa sales invoice report okay marka waxaan leenahay finish sida waxaa kugu diyaara reportskaaga waa kugu diyaara marka in yar waxaan xagga design-ka wax ka bedelinaa xagga design-ka bedelida waa isku mid waa kii aan soo baranay sida formska aan soo baranay marka maxaan sameynaynaa labada ma click u saareynaa kadib waxaan tegaynaa arrangement tegaynaa kadibna waxaan leenahay tabular baan leenahay marka inta sameyno kadib waxaan tegaynaa format ka tegaynaa kadibna xaggan aan jecelahay ka dooranaynaa formatka iyada waa intii aad ku soo baratay formskii un bay isku mid yihiin waxay ku kala duwan yihiin male okay marka intaan sameyno yaa waxaan ku laabaynaa arrange ku laaban kadibna waxaan leenahay kadib markaan intaan sameyno waxaan leenahay waxaad noola sintaa align tag kadibna waxaad tiraa to left okay marka intaan sameyno formkan haddaan eegno ku sidoo noqday waxoogaa sida yar dhamaan laakiin weli ma habaysno waxaan sameynaynaa waxaan horta invoice ID-ga isagoo nu horeysiinaynaa qofka magaciisa noogu xigay agaabta nagu iibsaday magaceeda iyo intaan ka sinay intuu nagu iibsaday markaas aan yarta kala tartiibinaynaa xagga tartiibinta waad iska garanaysaa markaas sidan baad leedahay banaanka ku dhufo si uu correct kaaga qaadato kale waxaad sameysaa marka tabularta soo doorato intaad sida labadaba click u saarto waxaad ka qaadaa remove layout sababtoo tahay xabad ma qaadi karaysaa hadduu layout-kaasi kuu saaran yahay okay marka banaanka ku dhufo kadibna waxaad leedahay kan saa u soo dooro saa u soo qaad kadibna kan daba mari okay invoice ID-gu xagga noo maro kadibna kan soo durki saa soo durki okay marka waxaan leenahay formatka kadibna kan xagga noo gey invoice-ka isaga waan saaban u yaraynaynaa so waa number bas marka waad yarayn mid walba waxaa isku daydaa inta la eeganaad uga dhigto meeshiisa si maarata uu kugu weynaan reportsku calaamadda haddaad eegaysa calaamadda waxay ka dhigan tahay yani reportskaaga yani markaad soo saaraysa uu ka ballaaran yahay safxaddii caadiga taa ka dhiganta markaa ku yaryare kadibna kan soo qaado sida caadiga ayaad soo barato kadibna sidaa ugu yare si ula ekaato meesha
intayna kan horta soo qaadanin kan xagga ku daa waxaan soo qaadanaynaa itemkaan iibinay wuxuu ahaa qofkaan ka iibinay iyo itemkii aan iibinay isku xigay. Okay, kadib sidaa ugu yaray kan sidan iyo turki kan naga daba turki marka maxaa noogu xigay itemkaan iibinay maxaan ku xignaa intuu naga iibsado qofku kuwanta soo yani inta xabeen iibinay kadibna price intaan ka siinay waan soo qaadanaynaa marka. Okay, marka waxaad leedahay sidan u yaray soo yaray kadibna date ku soo xijisay kadibna notes ku soo xijisay. Okay, marka inta xaggan tagtid formkaaga iska soo yaray formka xaggan soo yaray kana dib u celi pages kan isaga noo tirnaya yani wuxuu ku leeyahay waa page koowaad page labaad saas u leeyahay. Okay, marka formkan markaan eegno reports kan ka wada reportkan aan eegno reportkan soo noqday sida caadi ah u hagaajisan jirtay oo soo hagaajisanaysa sida iyadoo iska garanaysaa kan baad ku dhufanaysaa kadibna waxaad tagaysaa formatka kadibna waxaad ka dhigaysaa shadow ka dhig colorka saa doonto ka soo dhigo kan cadaan ooga dhig. Okay, kadib inta xaggan arrange tigto waxaad tidhahdaa to click saaro highlight saar kadibna xaggan waxaad tidhahdaa equal horizontal leh si ay inta masaaxada ugu dhaxaysa isla ekaato. Okay, kadibna kana kala imikana isagana halkaad ka dhigtay shadow aan ka dhigna waxaan ka dhigaynaa saaka ka dhig xagga colorkana waxaad tidhahdaa equal horizontal leh isagana kadibna waxaad tidhahdaa colorka waxaad ka dhigataa sida jeceshaa ka dhig. Okay, waxaa noo hadhay kana noo hadhay imika calaamad diyaarada ku tusay iga baabaaday sababtoo tahay imika yani waa sax bay ka dhigan tahay baabkaagu. Okay, marka intaasaa waxayno u dhamayno kan haddaad xaggan doonto iyadoo lafteeda waad ka dhigan kartaa. kan reportkan haddaan soo eegno marka kadib reportkan soo noqday reportkeenu haddaan doono tan hoose design view kadibna waxaad tidhahdaa kan samir blurry iska caamba soo gudbinaysa samir blurry si meesha ula ekaato. Okay, inta haddaan ku dhaafno inta reportkan haddaan ku dhaafno yani qofkii aan ka iibinay kadib keliya waxaan soo sameynaynaa pop up baan kasoo dhigaynaa bes pop up ka dhig kadibna yes dheh. Okay, marka saabu reportkan saabu noo diyaariya marka save dheh kadibna close dheh isku xidhanaa kan. Marka maxaan u baahannahay si aysan voicekeenu kusoo laabo kadibna waxaan kusoo darsanaynaa button. Okay, waxaan button soo darsanaynaa waxaan leenahay report operation waxaan leenahay report briefing next yes next waxaan leenahay print report magaca doonta ku qoran print report kadibna next dheh kadibna finish dheh. Okay, markaan saa sameeyo daawo hadda on view on qofkan saa soo sameeyo
agaabtan soo iibiyo intaan ka siiyo sorry waxaan geliyey maaragtay xaraf baan geliyey markaan saa sameeyo print report markaan idhaahdo toos uu intaan ka iibiyo qofkii ninka maxamed waxaan ka iibiyey wuxuu sameeyey haddaan soo hagaajinayna wuxuu sameeyey wixii reports ahaa oo dhan oo jiray isagu suu keen daray marka horta aan isku hagaajino aan nidhaahno waxaan doonaynaa inaan nidhaahno mar walba halka xabadda aan joogno noo print kale isagu wuxuu sameynayaa wixii jiray invoice-kii aan hore sameynoo dhan buu yuu soo wada qaadanayaa markaas aanama doonayno waxaan doonaynaa marba kaan joogno oo keliya noo print kale ayaan doonaynaa safde kadibna soo furo waxaan soo furanaynaa reportigeena furo marka imika haddaan open idhaahdo marka imika si fiican baa loo arkaya laakiin invoice-yadii oo dhan ba isku tirinaya marka waxaan doonaynaa marba xabadda aan joogno keliya inuu noo tiriyo xaggaa baan tegaynaa kadibna waxaad leedahay open dheh xaggan marka waxaad tegaysaa invoice ID halka ku qorantay criteria invoice ID criteria kadibna build dheh kadibna waxaad leedahay file all forms dheh kadibna waxaad tagtaa invoice head table form baad tegaysaa kadibna waxaad leedahay ka aan u baahnahay waxaa weeyaan waa invoice ID-ga ka isku midka yihiin bes okay marka save dheh kadibna kan iska xidh marka aan reportkeena furno xabadda marka aan yes dheh xabadda aan doonayno inuu maarata xabaddan markaa joogno inuu noo soo saaran doonayna marka waxaan leenahay invoice-keena noo fur kadibna waxaan tegaynaa qofkan inkoo qoftaan naciime matalan ba basta waxaan keenaynaa basto 4 xabo okay marka print haddaan idhaahdo okay wixii soo saaray oo keliya halkan masaaxada kuma fuluulaya waad soo ballaarin karaysaa haddaad doonto meesha waad ballaarin karaysaa marka muxuu sameeyey naciimo basta ka iibiyey oo 4 xabo ka iibiyey okay marka haddaan taa meesha masaaxada haddaan soo ballaarino tan waxaan leenahay close price-ka waxaad leedahay xaggan soo yar ballaarinaysa takala halkan quantity sold halkan taadi mato tan weli iska badbaadi okay kadib waxaad imataa halkan quantity sold gaymo tirada waxaa nooga dhigtaa tira caadi nooga dhig okay waxaan kaloo u baahannahay quantity sold bes invoice marka haddaan saa u eegno kan waa caadi okay haddaan weliba ku laabano waxaan leenahay haddaan saa ka dhigno waxaan leenahay formatka tag kadibna left okay markaan waa sax kama iska xidhanaa qof horta invoice-kan soo geli wuu leeyahay marka waxaan leenahay qofta marka hore xiibina waxaan leenahay qofka wax ka iibi kadibna waxaan leenahay baasto ka iibi 3 xabo daawa hadda imika waan sax noqday imika 3 xabo baasta sanadado ka marka imika report-ka sidan buu sax ugu yahay ugu soo baxaya invoice ID waa 172 qofka wax ka iibisay waa kan agaabtaad ka iibisay intaad ka siisay price-ka يعني انت حبيت تيجي انت تكسيسي تاريخ marka hadaad note isku qorato okay marka intaas hadaan saa ku dhaafno reports keena saa ku dhaafnaa design view waan leenahay kan baan design view leenahay kadibna xoogaa botamadan iyo wax baan yar hagaajinaynaa
form view aan idhaahno ka formkii absaano kuwan iyaga kan hoose dad doonaysa wax kasoo bedelato kan iska save garayso save leh kadibna iska xidh waxaad tegaysaa halkiisii originalka uu ku ahaa kiisa formka halkan uu original ku ahaa kadibna halkan intaad ku dhufato marka intaad samaysato kan iska xidh save leh kadibna close daawo automatic buu xaggan maarta kugu hagaajiyo sidaan kasoo dhigo kuwan markaasaaba waxaad samaynaysaa saabadu jiidaysa halkaa ugu samaysa okay hadaad doonto xaggan hoosta design view kadibna kan intaasaa ugu dhufato okay from view marka marka hal mar bas baan ku laameynaa save leh yes all leh kadibna close kan baan hal mar ku yar laameynaa sorry xaggan ma waxaan leenahay from view leh kan tag kadibna halkan waxaan ka bedelinaa kalarkaas nooca ka dhiganaa alternate colorka waa kalarka bedelka kaas markaa kaa yahay ka bedelkee noocana maxaad ka dhigi ka bedelkee noocana kaama ka dhiganaa okay close marka yes leh kadibna yude okay markaa sidaa buu noqday markaa laga soo xareysanayso tiba yar qabsatay sida maadaama markaa soo yareynaysa okay bas inta aad saaraysa marka aad soo xareysato sida maadaama okay quantum solution tan waxa ka bedeli karo salaam hore soo sameeyay tan 10 hore soo sameeyay kumid xalliga bedeli kartaa kuwan iyo waxa ka bedeli kartaa marka qol karaysa 10 hore soo sameeyay hadii aadan 10 hore soo daawanin 10 hore soo daawo shaqo badan ma kan ka soo qaban okay kan markaas aan soo doorano agaabta doorano okay shan xabo print iraado okay hadaan xabid kale u raaciyo xabid kale hadaan raaciyo bariis iyadana 4 xabo ama 5 xabo 6 xabo ka dhig print aan ka maaska xirayaa si uu maartay xabida kale soo daro print oo ka xabida kale soo daro okay marka doonto inaad soo saarto sidan buu print kaaga noqonaya marka sidan buu invoice kaaga noqonaya marka waxaan rajeynayaa maanta inaynu intaas fiican isula fahnay kuma kulus kale yahay